بسم الله الرحمن الرحيم وعن أولا أكسندا وذيال سيدة أولا تيم بكونا سو دوالا برنامج كي kulan wanaagsan daawadayaal mar kale iyo meel kasta ay joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii muuqaalka wariyaha oo had iyo jeer baan ku soo bandhignaa nolosha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo barakacay gudaha Soomaaliya isla markaana aan ku jahjeeno xaaladda wariyaha meesha uu ku nool yahay iyo maskaxiyan waxyaabaha iminka ku dambeeya sidoo kale waxaad barnaamijka kula socotaan muhiimadda loo aasaasay in qof walba Soomaaliyeed ka warhayo xaaladda wariyaha dabaadkani barnaamijka xiisaha badan muuqaalka wariyaha waxa miiska inoo saaran isla markaana taariikhdiisa ku soo bandhigi doona wariyaha Cabdisalaan Axmed Kacaan oo kamid ahaan jiray wariyaashii ka soo shaqeeyay magaalada Garowe ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland wariye Kacaan waxaan wax ka weydiin doonaa su'aalo dhowr oo quseeya noloshiisa iyo saxaafadda waxaana su'aalahaasi qayb ka noqon doona xilliga uu saxaafadda ku soo biiray intuu saxaafadda ku jiro dhibaatooyinkii uu la kulmay iyo waliba xamigiisa saxaafadeed maxaa iska bedelay waliba jacaylka waxyaabaha uu ka aaminsan yahay idinka joogi weyno idinka jiifi weyne habeenu cararta inta iyo lamid ayaad kula socon doontaan barnaamijka qaybtiisa waraysyada oo aad xiiso badan barnaamijka waxa idin soo diyaariyay isla markaana halkaan ka soo jeedin doona anigoo ay dir Sheekh Axmed Guure waa mar kale iyo barnaamijkii muuqaalka wariyaha aduu wariyuhu tilmaamo xogtiisa waajibkiisa wargeysyada haduu ku qaado adigoo agar hawga hadda waraysigan oo xiise iyo kalgacal xambaarsanayaan su'aasha ugu horeysa weydiiyay wariye Cabdisalaan Axmed oo lagu naanayso Kacaan in uu noo sharaxo xilliga uu saxaafadda ku soo biiray haddaba Cabdisalaan Kacaan oo su'aasha ka jawaabay wuxuu yiri aad baad u mahadsantahay Idris Guure saxaafadda waxaan ku soo biiray sanadkii 2008 xilligaas oo aan ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ma noo sheegi kartaa idaacadii kugu horeysay ama TV-ga aad la shaqal bilowday xilligaasi markii ugu horeysay idaacad iyo TV midna kama shaqo bilaabin waxaan ku bilaabay wargeyskii Kahbari oo ka soo bixi jiray gobolka Bari muddo kooban ayaan la shaqeynayay Kahbari waxaan kaloo sidoo kale isla sanadkaasi aan la shaqo bilaabay idaacadii Voice of Peace codka nabadda xarunteedii magaalada Boosaaso muddo kooban ayaan iyadana ka shaqeynayay waxaan sidoo kale aan la soo shaqeeyay TV-gii ETN TV isla xaruntiisa ahayd magaalada Boosaaso Cabdisalaan waxaan ognahay minad saxaafadeed waa bad qofba qaab buu ku soo galaa dadba ku soo gala jeclaysi ay jecel yihiin minada saxaafadda qaarne familiyadooda ama heladooda ayaa saxafiyiin hore ahay adiga qaab noocay saxaafadda ugu soo biirtay saxaafadda kama haysto hidaraac iyo in familkaygu ahayn qayb ka mid ah saxafiyiin ahaayeen saxaafadda aniga jeclaa yaraantaydana waan ku hamin jiray inaan noqdo saxafi kamid ah saxafiyiinta Soomaalida aad baan u jeclaa saxaafadda marka jacayl aniga iga yimi ayay ku dhalatay inaan saxaafadda bilaabo oo aan saxaafadda ku soo biiro laakiin ma jirin hidaraac iyo familiga oo aan kala socday inay ahaayeen saxafiyiin Cabdisalaan waxaan ognahay ay sheegtay inaad markii kugu horeysay 2008 saxaafadda ku soo biirtay oo aad ka shaqo bilowday TV-ga ETV iyo journal ma jiraan TV kala mid ah kala la shaqeysay xilligaas wixii ka dambeeyay intaan ku sugnaa Puntland waxaan la shaqeeyay idaacadii Horseed Media waxaan sidoo kale aan ka soo shaqeeyay oo ayadana wakiil u ahaa idaacad fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir oo idaacadii Radio Danan isla sanadkaasi waxaan imi Muqdisho waxaan muddo kooban kadibna waxaan soo gudbay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda halkaas oo kamid ah saxafiyiintii qaxootiga u joogay dalkaasi intaan joogay dalkaasi waxaan la shaqo bilaabay telefishinka caalamiga Universal oo aan Kampala uga soo warrami jiray kadib waxaan u wareegay dalka ay dariska yihiin ee Koonfurta Suudaan muddo 4 sano ayaan halkaasi wakiil uga ahaa telefishinka Universal ilaa 2010 ilaa 2015 bilowgiisii waxaan la shaqeynay Universal TV oo aan wakiil uga soo noqday dalalka Uganda iyo Koonfurta Suudaan Cabdisalaan inta aad saxaafadda ku jirtay ma jirta wax dhibaato ah oo ku soo gaartay dhibaato ka badan oo dhaafsiisan xarig igama soo gaarin laba mar ayaa lagu xiray magaalada Boosaaso mar waxaan kamid ahaa saxafiyiin ka shaqeynaya idaacadda Horseed Media oo ciidamada ammaanka ee Puntland ay xabsiga dhigeen kadib markii idaacaddaasi ay sii deysay codka hogaamiyihii dagaalka kula jiray dawladda Puntland Sheekh Maxamed Atam ka dagaalami jiray galgala marna kalena iyana Boosaaso ayaa lagu xiray oo muddo kooban ayaan xirnaa marka labadaas waqti ayaa la xiray oo
dhibaato soo gaartay dhibaato xarig dhaafsiisan imay soo gaareen marka dhibaatooyinkan kala kulmay saxaafadda markasta way jiri kartaa cagajugleyn iyo hanjabaad ku soo gaara laakiin wax xarig ka dhaafsiisan igamay soo gaareen intaan ku jiray saxaafadda ilaa 2008 waan ku soo biray saxafiyiintii Puntland oo aan kamid ahaa saxafiyiinta ka shaqeeya magaalada Boosaaso ilaa hadda waan ahay saxafi degan dalkan Koonfur Afrika ma jira saxafi Soomaaliyeed ama saxafi kale oo caalami ah jecleed inaad ku dayato inta saxaafadda ku soo biirin ama hadda aad saxafi aad tahay markasta waad ku dayanaysaa saxafiyiintii ka horeeyay oo wixii saxafi kasta wax wanaagsan qabtay waad ku dayanaysaa inaad noqdo wadadiisa raacdo ma jirto saxafi aan sameeyo codadkiisa ama aan iska dhigdhigo laakiin waan jeclahay inaan saxafiyiintii Soomaaliyeed inta joogta oo xilliga nool iyo intii dhimatay Allah u naxariistay oo kamid yahay wariyihii rugcadaaga Soomaalida awke waa jira inaan ku daydo oo aan jeclahay inaan wadadeeda maro saxafiyiinta hadda dalkii waan ka soo wada carnay oo South Africa aan ku sugannahay waan ku shaqaysanaa mihrada saxaafadeed markii taa laga soo gudbo ma jirtaa professional kale oo aad leedahay maanta alla isleedahay oo ku shaqaysan kartaa waa jirtaa marka laga soo tago mihnadeeda saxaafinimo oo markasta aan gacanta ku wato aan jeclahay inaan markasta aan ka fogaan markasta aan ku dhex jiro markasta aan noqdo saxafi marka laga soo tago way jirtaa waxaan nin ganacsada oo degan dalkan Koonfur Afrika ma jira saxafi Soomaaliyeed oo ku garab qabtay ama qof shakhsiyo oo ku soo garab qabtay oo magacaani maanta aad leedahay saxafinimo isleedahay alla ka soo koob waa nin ku soo garab qabtay aad kuma soo koobi karo waraysi iyo qoraal yar aan sameeyo kuma soo koobi karo saxafiyiintii soo gacan qabtay waxa si gaar ah oo kaliya laba aan ugu mahadcelinaya saaxiibkay qaaliya macallinkaygii mahir jaamacadan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed nusaj waxaan sidoo kale u mahadcelinaya saaxiib kale oo Cabdulqaadir Juba oo isna kamid ah saxafiyiinta reer Puntland xilligan waxa ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tiro kuma soo koobi karo meel kasta aan tago iyo dal kasta aan tago waxaan ku leeyahay macallin iyo saxafi iyo saaxiib joogta oo markasta garab kaga taagan dal kasta aan joogay iyo meel kasta aan tagona markaas waan u baahanahay gacan qabasho iyo horeyso socosho marka kuma soo koobi karo saaxiibada soo gacan qabtay mid iyo labo hadda South Africa ku wada suganayo TV-ga u shaqeysaa mise idaacadii hor u dirtaa hadda waan jeclahay markasta inaan saxaafadda ku soo gudajo xilliga waxaan ka tirsanahay oo aan la shaqeeyo telefishinka caalamiga Universal marka heer intee laga jeceshaa inaan mihnada saxaafadda ka gaarto aad waa waxyaabahan ku hamiyo inaan jeclahay oo markasta aqoonteeda kor u qaado markasta aan jeclahay saxafiyiinta aan leeyahay inaan ku daydo waan jeclahay Omar baa kamid ah Abdu baa kamid ah saxafiyiintaas oo kale waan jeclahay inaan ku daydo oo wadada maran aan maro marka aad waan jeclahay waxaan jeclahay oo markasta aan dhageysto abwaaninta badan waan dhageystaa waan jeclahay sooda laakiin laba fanaan ayaan aad u dhageystaa waa fanaan iska day hadda fanka uu ka baxay la sheegay waa Saxyare iyo Bashiir Cali Xuseen oo kamid ah hobaladii waa bari marka waxaan jeclahay heestina ku soo dhaweyso haddaad heli kartid laba heesood ee cusub lahaa heesta Bashiir Cali Xuseen ee jirjirola dumar لغنا كشركو idinka joogi weyno idinka jiifi weyno habeenu carartaa jijiboodo dumaro idinka joogi weyno idinka jiifi weyno habeenu carartaa
jacaylan jirin baad weligii jiraysaan jiraana dumaro ragga waxaad ku jabisaan